dadkaygu isxilqaan dal walba dadkiisa dhisee isxilqaan dalkan yaale inagaale hada dalkan yaale inagaale dadkiisa dhisee muwaadinu isxilqaan wadadkaygo hoy dadkaygo wadaruuri daruuri gawacee tagayo dalkii bay isku xidhmaye degdegaanu bilowno wadadkaygo hoy dadkaygo wadaruuri daruuri gawacee tagayo dalkii bay isku xidhmaye degdegaanu bilowno saaka oo bisha lixaad ay tahay 2022 waxa ilaahay mahadiisa in qaybtii koowaad daamurkii lagu sameyn lahaa wadada Ceel Daahir Carigaabo uu ka baxayo dekada Boosaaso una ku sii jeedo site-kii hadii la hagaaneedno waxaan jecelnahay inaan halkan baaq uga soo jeedino dhammaan shacabweynaha reer Puntland gaar ahaan deegaanka Sanaag jaaliyadihiisa oo dhan iyo jaaliyadaha kale Puntland iyo shacabweynaha Soomaaliyeed kulligoodba in mashruucan oo ah mashruuc Soomaalidu ay maalgeliso oo ay Soomaali samaysatay loo baahan yahay in laga wada qayb qaato waxaan la socodsiinaynaa daamurkan iminka meesha maraya oo gaaraya 5,000 oo fuusto wuxuu qaybtii ugu horeysay ka yahay baahi daamur oo wadadu ay u baahan tahay oo gaaraya ilaa 50,000 oo fuusto taqriiban ayay waxa tahay qaybtii koowaad oo aan rabno intii kalena insha Allah inay ku daba xigto kaasoo aan hadda ku soo qaadnay lacag credit oo deyn ahaan ku soo qaadnay aan rabno inaan bixino madaxweynaha Puntland iyo dawladaba waan kala hadalnay mawduucan taageero fiican iyo iskarabtaag ayayna muujiyeen inay hadii alla qadaro u hawlgalayaan sidii mashruucaas u dhameystirmi lahaa qayb xoog leh ay ka qaadanayaan laakiin waxa loo baahan yahay shacabka reer Puntland iyo shacabka Soomaaliyeedba inay mashruucan hadii la hagaajino ay nagala qayb qaataan oo farrisigiisi oo aanu bilaabayno lagu sadaqadaysto sadaqa jaariya weeye wadadaas oo wada ummadda Soomaaliyeed ay leedahay ummadda Soomaaliyeed ay dhisatay ayaan rabnaa hadii alla qadaro in sidaas looga qayb qaato waxaan rajaynaynaa insha Allah bacdama markii hore baahida wadadu ay ahayd ciid iyo biyo oo labadaba dhulka oo laayeen inaanu soo dhameystirno oo aynu dhameystirano baahidii daamurka iyo wixii dibadda aynu uga baahnayn waxaad u jeedaan inuu daamurkii hadda dhex taagan yahay dekada magaalada Boosaaso daamurkaas oo ah marxaladii labaad oo wadadu ay u gudubtay waxaan halka ka cadaynaynaa daamurka halka raran inuu yahay deyn sida uu sheegay Xaaji Caliba deyntaana rajaynayno inay soo bixiyaan kow dawladda Puntland labo jaaliyada gobolka ee dibadda ku maqan iyo kuwa gudaha jooga saddex cid kasta oo muxsina oo wana samafala ah oo raba inuu sadaqa jaariyada ka qayb qaato waa u furan tahay waxaan halka afmugi ku leenahay deyntaas wadada Ceel Daahir Carigaabo si wada jir ah loo bixiyo ay tahay 5,000 fuusto 5,000 fuustana hadda kolba waxa weeye waxa lagu qaaday deyn iyo wixii la heli karay waxaana loo baahan yahay dawlad iyo ganacsato in kulli laga qayb qaato waxaana weeye si gaar ah markaan hadalka aan si kale u sii iraahdo dawladdu waa inay maxaan ku sheegay arrintaas ay maxaan ku sheegay si fiican uga qayb qaadataa hadda waana ku jirtaa waxaana la rabaa hadda qaybihii kale to insha Allah dalabkooda la sameeynaya waana qaarkoodna waa soo socdaan in insha Allah ilaahay idankiis ma aragtay arrintaas si degdeg loogu qumo adii kale waxaan lahaa aboor kuba male itaal urur buu suubsado afku dhoobada ku siday dudumayo ka askumaye nafta orod aamintay isiini wax u qabsada adii kale